Halkani waa dalka Morocco, wuxuu juqraafi ahaan dhacaa waqooyiga qaaradda Afrika. Waxaa luqad ahaan looga hadlaa luqadda Carabiga iyo Faransiiska, sidoo kale luqadda Amaziiqiga ama luqadda Barbarishka. Gudaha Morocco waxaa ka socda mashruuc loogu magac daray Higsiga Morocco 2050, taasi oo ku baxaysa lacag malaayiin dollar. Sidee dalka Morocco kaga faa'iideystay horumarkan kuna noqday dal barwaaqo sooran ah si uu u hiigsado wadamada ugu horumarsan qaaradda Afrika. Morocco maxaad kala socotaa taariikhdeeda? Inta ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Aniguna waxaan ahay Maxamuud Milano. Haddii aad janaalkan ku cusub tahay Maxamuud Milano, fadlan subscribe dhahawna furo gambaleelka si aad ugula socoto warbixinadan halkan ku soo gudbiyo. Mashruuca Morocco ee dhawaan laga hirgeliyay ayaa ku baxday lacag gaaraysa 2.6 milyan oo dollar, kaasi oo ah inay Morocco yeelato tariinka ugu carisan ee qaaradda Afrika, kaasi oo lagu qiyaasay mid aad u casri ah. waxaana uu jarayaa saacadiiba 320 kiiloomitir si dadku ay u isticmaalaan iskaga kala gooshaya gudaha Morocco iyo dadka webiga kala duwan ee dalxiiska u yimaada kuwa u kala shaqo tagaya magaalo ka magaalo gudaha dalka Morocco. waxaana sidoo kale 26 milyan oo dollar ee Morocco ay ku qarash gareysay jidooyinka waaweyn iyo loo dhisay si casri ah oo waafaqsan hanaanka caalamiga si Morocco ay kaga kaaftanto burburka iyo wadooyinka yaryar ku yimaada shilalka ka dhaca jidka loona badbaadiyo shacabka gaadiidka ku isticmaala wadooyinka waaweyn ee dalka Morocco. waxaana maalgelintan ku guuleystay shirkadda laga leeyahay dalka Shiinaha, maadaama xukuumadda Beijing ay bixinaysay 26 milyan ee dollar ee lagu maalgelinayo jidadka waaweyn ee Morocco. waxaana la rajeynayaa dhismihiisa in la soo gabagabeeyo wajigiisa labaad 2025 markii la gaaro. Morocco waxay sida ku guuleysanaysaa inay ka kaaftanto dhibaatooyinka shacabkeeda ku qabaan wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka iskaga gudbo, maadaama Morocco ay tahay mid ka mid ah dalalka loogu dalxiiska badan yahay waqooyiga Afrika dhaca. Grand Theatre of Rabat ayaa dhawaan mashruuciisa dhismaha la soo gabagabeeyay, waxaana lacag ahaan ku baxday 43 bilyan oo dollar. waxaana cabir ahaan ku fadhiyaa 47,000 square meter. waxaa noqonayaa xarun tiyaatar ee ugu weyn qaaradda Afrika, waxaana iminka laga hirgeliyay dalka Morocco sidoo dalkaasi maamulaya boqor Maxamed uu sheegay. waxaana maalgelintiisa ku guuleysatay shirkadda laga leeyahay dalka Shiinaha oo qorshahan hirgeliyay. sidoo kale xarunta Arab Said ta ugu weyn waqooyiga qaaradda Afrika ayaa laga dhisay dalka Morocco, waxaana mashruucaas ku baxday 245 milyan oo dollar, iyadoo maalgelintiisu ay noqonayso maalgelintii ugu weyneed ee janaal uu ku sameeysto waqooyiga qaaradda Afrika. waxaana xaruntan laga xukumo Arab Said-ka ay tahay goobo ay ku dhow yihiin hoteelo casri ah, maqaayadooyin dadku ay u dalxiiska tagaan xilliyada waqtiga hayaan, goobo xafiisyo aad u qurux badan, goobo supermarket dadku ka adeegan karaan oo ay ku yaalaan xarumaha kala duwan ee shirkadaha waaweyn ee caalamka. waxaa kale oo ku taala shaneemo aad u weyn oo dadku ay ka daawan karaan aflaanta kala duwan, filmaanta cusub ee Carabta iyo Morocco lagu jilo iyo kuwa Bollywoodka iyo Hollywoodka ee shanooyinka laga sii daayo. xarumo ay dadku ku caawin karaan, sidoo kale caruurtan ay waqti ku qaadan karaan ama dadka qoysaska ah iyo familiyada ka kooban iyo lamaanayaasha dalxiiska ku ah dalka Morocco. waxaana sidoo kale meel gabagaba maraya mashruuca Mohammed VI Tower oo lagu maalgeliyay lacag gaaraysa 320 milyan, kaas oo dhismihiisu ay gacanta ku heshay shirkadda laga leeyahay dalka Shiinaha, maadaama ay iyaguna maalgelinta qayb ka yihiin. waxaana dhir ahaan la egyahay 250, waxaana loogu talagalay in laga arko masaafo fog oo gaaraysa 50 kiiloomitir xagga fogaanta sida ay sheegeen injineerada gacanta ku hayo. waxaana shaqada ahaan sidoo kale loo dhisay inuu iska difaaci karo cimilada dhibaato aysan ku keenin karin. waxaana sidoo kale lagu xiray sida ay injineeradu ay u sheegeen BBC-da in uu casri leeyahay sida dabaqyada waaweyn ee ka dhisan Dubai iyo New York oo kale. waxaana ku shaqeynayaa hanaan energy, wuxuuna leeyahay difaac
iyo qalab ka hortagaya xilliga cimiladu ay isbedelayaan ama khatar digniina muujinaya si ay ugaga baxsadaan shaqaalaha ku sugan xaruntaani. waxaana naqanayaa taawarka ugu dheer oo laga hirgeliyay waqooyiga qaaradda Afrika kaas oo hirgal ka noqda dalka Morocco. mashruuca Wisil Casablanca Port qarash ahaan waxaa ku kacaya adduun lacageed oo gaaraya 730 bilyan oo dollarka Mareykanka. waa deked casri ah oo ay u dhameystiran yihiin agabkeeda kala duwan. sidoo kale waxaa barbar socdo mashruuc loogu magac daray dhismo xaafadeed asna loogu magac daray Wisil Casablanca Port oo mashruucan qayb ka ah kaas oo ka kooban xarumo lagu cabeeyo casriyeeyo hoteelo deegaanka ah goobo waxbarasho goobo shaqo madaxafiyo. waana xaafad cusub oo dhismaheedu ay qaadan doonto dekedan waxaana goor hore kala iibsaday shirkado laga leeyahay dalalka Shiinaha, Japan, waqooyiga Kuuriya, shirkado kamid ah dalka Turkiga iyo ganacsatada adduunka. waana goob dhismaheedu cusub yahay oo ku soo kordhi doonto dalka Morocco waxaana maalgelinta la rajeynayaa inay shaqo abuur u noqoto dad gaaraya 10,000 oo shaqaale reer Morocco ah inay shaqo abuur ka helaan deegaankan cusub ee dekedan loogu magac daray Wisil Casablanca Port oo la adduun lacageed 730 milyan oo dollar oo ku baxay. waxaana maalgelintan iska kaashanaya xukuumadda Morocco iyo dalka Shiinaha iyo shirkado laga leeyahay dunida. waxaana sidoo kale aad mashruucan u xiiseynaya sida la sheegay boqorka wadanka maamulaya Morocco ee boqor Maxamed. waxaanu lahaan doonaa hanaan goobo loogu talagalay xataa kiimikaalka in lagu bacrimo iyo deegaan wax laga soo saari karo. waxaana Morocco rajeynaysaa in xaafadan cusub iyo deegaankan ku soo kordhiyo oo nolosha reer Morocco ee dakhliga guud ee dalka Morocco wax ka bedelo dekedan ee u noqoto nacfi. waxaana sidoo kale mashruucan uu leeyahay wadooyin waaweyn oo gaari doona deegaankan cusub. sidoo kale waxaa kamid ah adeega enerjiga cusub taas oo laga dhalinayo solar amba hawada iyo biyo xireenno loo sameeyo si deegaanka looga soo saaro koronto ku filan oo macquul ah qarashkeedu uu jaban yahay. inta ayaan ku soo gabagabeynayaa saaxiibadaan jecelnahayow. haddii aad ku cusub tahay janaalkayga Maxamuud Milano fadlan subscribe dhaho gambalelkan u furo si aad u noqoto saaxiib amba walaal had iyo jeer igu xiran. mahadsanid. tanis arag dambe oo xiiso leh sidaa iyo nabadgelyo.